هاتن u diyaar garooba barnaamijkeenii waraysyada toddobaadka raadiyo ku raxay codka shacabka dulman oo maanta martii inoogu yahay abwaan khiyaar xasan maxamed oo kamid ah abwaanada Soomaalida ogaadeeniya kuna sugan dalka Holland ee qaaradda Yurub waxaana waraysigaasi noo qaaday anigoo Nuur Maxamed waxaana ugu horeyn abwaanka weydiiyay sida uu u arko madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhawaan sheegay in la soo saarayo shidaalka ogaadeeniya Itoobiyana uu ku garab siin doono soo saaridda shidaalkaasi laguna sifayn doono tuulada dameer joog ee dalkaasi Djibouti kadibna halkaasi laga dhoofin doono إن شاء الله عدنا هذا أركتي ده وأن كل يبنا يا هدي وإلهي ويبصقه أنا أركتي هرت عن قواعد حيتهاين ما أمرنا هي مناعة من سني Djibouti خيرات كل قاعدين يا أنت كلام بحظة شلابه دمرت شوقين Djibouti إن لقدوا فين دارا هرت أركتي أنا وقبل معها تصال ما كان صاغة الشعب كثير قاعدين يسيع درس عطوا هرت نين عبد الله حسن لو أنت لو صومالي هذه يقيني قبل ولا واحد كتير حكوي dadkii waxaan ku nacay waa ciraab xumo Soomaalidu waxa soo socdana ma taqaano waxay ka timidna xataa ma taqaano taariikhaan ugu ma noqoto laakiin maalintaas waxa indheeda hor jooga kaliya taqaanaa horta shidaalka ogaadeeniya shacabka reer ogaadeeniya iyo xataa qoolaha reer galbeedku ay ku dagaalameen Ameerikaan baa lagu laayay dadku taariikhdeena aqoon baa laga yaabaa Yurub dad Yurubiyaanana waa lagu laayay Kuusxul baa lagu laayay si taariikhda wala socotaanba dadka reer ogaadeeniya ku laayo dhagax iyo quran ayaa lagu laayay shaliid iska daay marka waxa weeye ma u maleynaya shidaalka intay Djibouti la baxdo inay Djibouti manaafacaadsanayso anigu horta aragti aan kaba maaha inayna suuro galeynina waa u maleynaya hadda waxaan rabaa laba tusaale Ismaaciil Cumar Geelle ninka inaan aragtidiisa qofka bini'aadamka markaad aragto aragtida uu qabo wax lagu cabiraa jiro oo lagu jaangooyo tusaale ahaan loo soo qaadanayo waxay yiraahdeen Soomaalidu hebel waxa sinaan kugu ma ahayn laakiin waxa tahay bay yiraahdeen wax kasta waan ugu maamaay karaa tusaale ahaan Ismaaciil Cumar Geelle waa wax isaga ku istaahilay marka waxaan rabaa inaan soo qaato laba tusaale waan gastay berigii hore Soomaalidu ay isdhici jirtay geerish kala dhici jirtay ninkii 10,000 wiil iyo fardale oo geeska Afrika ka tarin jiray baa nin malaha marka inuu dulmanayo soo aragsanaa meel ka kacay oo markaas wuxuu yiri wareer hebelow aan idin ducaynayna daayib marka niman laf dhuun gashay ku noqday buu meesha ku arkaa oo nimankaas uu doonay inay yiraahdeen noo duceey sheekh waan ku daynay waan gartay marka nin kale oo dadkii aad u walwalayaan ahayn baa meesha ka kacay arbuud anaga sheekh noo duceey buu idinku ayaa buu anaga reer hebel buu kolkaas yiri haye sheekh idinna naga adkaydeen buu waa gartay horta Djibouti u malayn maayo meeshaan Ameerika iyo Yurub iyo China ku laynay inuu Ismaaciil Cumar Geelle in Djibouti ka yimid horta sariid ka baxin uma malaynayo Ismaaciil Cumar Geelle kuma jirin dadkaan ka xabsano iyo dadka dagaal laga dhaxeeyay midna kuma jirin laakiin yaani waxa weeye wax agteeda markaan fiiriyo nuul ka hooseeya ay aragtidiisa iyo awoodiisa agteeda ay ka tahay qodobka labaad in Ismaaciil Cumar Geelle tusaale ugu soo qaadanaya wuxuu yahay berigii hore marka gabadha la guursaday geela badan laga bixin jiray wiil yaroo kureeyo intay tagaan meel duleedka markii dirgaha la joogaan bay carrada miistaan oo way ciyaaraan oo way laga tagaan oo way iscaayaan waxa jira marka hal ku dhag kureeyo inta badan markii dibadda joogaan ay isku caayaan oo ka gabadhii tirwiilka u baahatay ilaa cayda geelsay cay igu dar wixii uu kiira dhagta ku soo qabsaday markay isagoo ordi buu yimid xaafadii yimid islaantii hooyadii hayd buu ku hooyay magac intuu sheegay waxa rabaa dadkii markay xaafadda joogay ka kala yaaceen waxa dhigay wiilkii hebel uu waashay ilmihi yaraa oo ku hadlayeen maqlayseen markay gabadhii wiilka dhashay way fahmaysaa waxaan inuu wiilku fahamsanayna waxay ku tiri hooyo inta ku dhawaatay maxaad ku fali lahayd magacii bay leeyahay oo dadkii kale oo ka yaacay magac oo leeyahay waxa rabaa kii yaraa wuxuu ku jawaabay
وهي عرضان كم يصل هاول واحد كتر إسلامتي أبا يهوى العذاب وأبيك الكبحي بنوين بكتر إسلام أنا مرجع الأرض ماشى أنت ويل كل ما طيب ترى إذا أيون الأرض كور هيمين وتاسع كان يستينوا يدادو شريط بان رب حياة وأنا وحده ضدك غير شبوتي ما عرفتي هل كهذا دجن سومالي واحد راه هل كهذا ضدك غير شبوتي الصوماليات شبوت الصومالي كلمة دجن واحد دجن ضد ما عرفتي قومي ذكر الدون وعنفر له شعوبة كلا له أو صومالي له شعب كانوا ويقص العمية هناك يقصرف بدن بكمدين لكن هو واحد عند الصفحات أو كامبين وكوجلية أو الرباين وضدك غير شبوتي هيقول صعبيان لكن وحصل إيرفال له حبايراته معه mana suurtagelaysa waana lagu beenin doonaa umana sii soconaysa Ismaaciil Wargeelle wallahi yaaba inuu dad shacab oo qaxootiga sidii hore u dhacday inuu Djibouti ku laayo qaar uu cadowga u geliyo way dhici kartaa laakiin waa wax taariikhdeeda abwana ka dhaxgalo maxaa ku soo beegay baa la oran karaa Ismaaciil Cumar Geelle in uu hamiga inta leeg uu isgeliyo oo uu yiraahdo warshad lagu sifeeyo shidaalka ogaadeenaya ku jira intaas oo qarni dhulka hoostiisa ku jiray quwada isaga ka awood badan oo reer galbeed iyo Afrikaan bale ay ka qoosteen in isagu maanta uu yiraahdo waan soo saarayaa oo wadankayga lagu sifeynayaa oo naga dhoofinaya hamiga noocaas maxaa galiyay baad soo oran kartaa Ismaaciil Cumar Geelle hamiga noocaas labada way noqon kartaa Ismaaciil Cumar Geelle horta wuxuu aaminsan yahay dadkii 9 milyan ah Soomaaliyeed gobolka ku noolaa inuu Itoobiya cilib goysay oo baaba'een oo dadkii quursidiidka ahaa ay ka dhamaadeen aragteedu qaba oo maanta ruux yurka oran kara uu ku noolay boorta qaba qodobka labaad waxa weeye madaxda Afrikaanku inta badan kolkay doonayaan in ma aragtay loo saxabeeyo waxay ka sheekayaan wax propaganda oo sal iyo raal lahayn oo markaa dhageysataa oranaysa ninku wuxuu sheegay wax qof binaadam loo sheega ma ahane maxayaan buu sheegayaa bay dadka u sheegaan waan gartay labada arrimood way keenayaan laakiin waxa shaki ku jirin in Djibouti in jeexdin oo 9 milyan oo wiil oo gaajo u dhimanaysa oo Soomaaliyeed ay ku nooshaa inta saliid laga qaado dad aan 500 oo kun oo ruux dhannayn oo meeshaas shaqo ku lahayn inay ku noolaadaan wax suurtagal ma aha wax dhici kartana ma aha marka waxa weeye madaxda Afrikaanka ama kuwa Soomaaliyeed tayada xun leh ee bilaa karaamada ah ee caqliga ka jirin waxyaalaha ay ku fikiraan bay kamid tahay laakiin wax sariiqa toona lama markii Ismaaciil Wargeelle labada tusaalo ayaynu isaga u soo qaadaynaynaa aynu sheekadiisa ku koobaynaa waxa weeye wadaadkii adeerina idina ma naga adkaydeen anagu meeshan Itoobiya oo 9 milyanana 150 sano ku sardamayno ku dagaalamayna quwada shisheeye iyo reer galbeedna way noogu yimideen oo aada suulani looran jiray oo duqaaba inta aan kugu daray waxa la yiri soo durdurka sageed taagan baa loo hanjabay marka durdurka sageedna waa meel ajoo geela marmar ku dabaasha labadii goob u dhigtay odaygii ajadii intu saxaabaa ku qaatay uu labada dhinac iskaga rogo wuxuu dhaadeer tan Ingiriis baa noogu yimid oo Talyaani baa noogu yimid oo Axmaar baa noogu yimid ajada xun wax labada wada naga saara waa la leeyahay waa tahay annaga waan la dilaa oo quwada naga shisheeya wayna dilaan oo quwada naga xoog badan oo quwada kale nagu taageeran wayna dilaan laakiin weli wax hal dhagax naga qaata lama hayo sida aan sheegay bayna noqon doontaa wax suurtagal ma aha markii Ismaaciil Wargeelle isaga tiisa cadaawadii uu noo hayay oo shacabka reer waadini u hayay ee faraha badnayd bay kamid tahay ee uu rabay inta la cirib gooyo inuu biliqa ka helo sababtoo isaga cirib gooyada ka qayb qaatay waxaad og tahay dad boqol ruuxa oo dumar iyo maxas u badan inuu Djibouti ku laayay dadka Ismaaciil Wargeelle oo ognahay oo yani adduunka intiisa badan ka warqabto marka Ismaaciil Wargeelle halkaas ku koobaynaa okay aad baad u mahadsan tahay abwan haddii bal aynu inta kaga gudubno Ismaaciil Cumar Geelle iyo damaciisa ku aadan shidaalka ogaadeenaya sida aad la socoto waxa ka socda halkan baa ka socda muddo dheer sida aad adiguba sheegtay rag badan baa u soo dhintay qadiyada ogaadeenaya iyo khayraadkeeda Itoobiya oo ah cadow Afrikaana baa gumaysta bal halgankan ogaadeenaya ee shacabka Soomaalida ogaadeenaya ay ku jiraan iyo gumaysiga Itoobiya cadaadiska uu shacabka ogaadeenaya saaray bal aragtidaada labada qodob ku aadan horta labadaas arrimood anigu aragtida ka qabo waan ka jawaabay horta Itoobiya waxa la oran karaa intay takaadkii intii ka horeysay shacabka gobolka hadda horta gumaysiga way jirin baa la oran karaa waa aragtida hadda xaqiiqa markaan u qaato
وحوي نمان كان تكرير اللي أنت قبل كيدين بدك بيسي وقبل لوضي نمان كي هردك صوماليين قبل كدقن بقى أركتيدا إثيوبيا نبعاين وإني أركان إندو القهر مغلان بين نبعاين لكن دقن كيسا إيا معاملة ديسا إيا دين تيسا إيا أركتي ديسا إيا عد كيسا إيا دقن كيسا إيا دقاق كيسا انتبه حورو أبي أهاين انت تكري كوريسي بطاطا انت عرضك حربوها وانقرتي waxa yaala waxay doonaan way ku hadli jireen waxa yaala waxay doonaan way sameyn jireen diintooda iyo culture-kooda wanaagsan ee diinta islaamka khudda baqan ee quruxda badan xor bay u ahaan jireen laakiin maanta waxa arkaysaa tusaale markaan ku siiyo hal ruux oo gobolka ku dhashay oo reer oo Soomaaliya oo ama ana abihi la dilin ama walaalkii la dilin ama adeerkii la dilin lama helayo وواحد الشكل كتير هذا أنا بعرف بقى كسميه وهو على ولي بطون كيس أنا يوجد جنب بيسي معناها وحال لو أنا كلام بقوليه كل شيء وعنقف إيه الكيس قال الدليل ما بتشي بقى لا هي بقى أفكار كان وقت الشيء وأنا ولاش اللي الدليل أما أبتيج اللي الدليل أما عليك اللي الدليل أما ولاش اللي خسرين أما صاحب كل الدليل حرايات المجرى لما بيهلي بقى وحال يا ما تحلل كان كوه الله دتك عرفت جابن إيه دتك بربغاندلا عدوغا كاتay iyo dadka xaqqa iyo dulmiga ka jecel waxa laga yaabaa inay dhibsadaan laakiin waxa laga yaabaa waxa aan maanta sheegayo maalin maalmaha kamida tilkal ayaamnu daawulaha beenanaas maalin maalmaha kamida waxa laga yaabaa waxa aan sheegayo iyada oo qoran oo run ah iskuulada in lagu dhigtaa dhici karta waxaan anigu sheegayo iyo waliba waxyaabo fara badan oo maanta aan ka hadli karin